kadib markii uu guulaystay wejigii koowaad ee dhismaha dugsiga hoose dhexe ee Nugaal oo siiska wuxuu qabsaa looga dhisayay degmada Celaf Weyn wejiga horena uu ka koobnaa 3 fasal oo ay hadda u harsan tahay dayactir kooban ayaa waxa si wada jira hadda loo bilaabay mar kale dhismaha 4 fasal oo wadarta dugsigaasi hoose dhexe ka dhigaysa 7 fasal dhismaha 4 fasal ee cusub ayaa waxa dhisi doona ganacsato iyo dad kale oo deegaankani ka soo jeeda oo dareensan baahida loo qabo waqtigani dugsigani shaacinta dhismahan waxa ka soo qayb galay oo wada jir uga hadlay cuqaal maamulka degmada Celaf Weyn ganacsato iyo waxgarad kale ugu horeyna guddigii gacanta ku haysa dhismaha dugsigani Nugaal ganacsade Ismaaciil Cali Liibaan Chief Caaqil Maxamuud Nuux maayir ku xigeenka Celaf Weyn oo dhamaantood hadalkiisa kala dambeeyay waxa ay sheegeen muhiimadda uu leeyahay dugsigani marka uu dhismo iyo baahida loo qabo waxayna ay ka warameen cidda ku deeqday fasaladan la dhisayo iyo waliba baahida wali taagan ee dhismaha dugsigaasi uu u baahan yahay waxaanu isugu nimi hawlshii iskuulka ee soconaysay iyo tii dambe ee bilaabantay waxa halka dhamaaday oo jiingada saaran tahay iyo albaabadii ku xidhan iyo daaqadihii waxana ka dhiman yihiin saddexdii hore ee fasal halkana waxa shaqadoodu socotaa waa 4 qol sidoo horeba loo sheegay 4 qol waa la ballan qaaday 5 qol bay ahaayeen oo la ballan qaaday waxana waa dhiman yihiin waxana waa kuwa shaqadoodu socoto waxa cidda bixisay waxaan leenahay waad ku mahadsantiin ee ka qayb qaadatay iskuulka dhismihiisa ka cusub iyo kooreba wixii dhimanna waxaan leenahay ku soo dara waxa leeyahay hal magac dhabay ama kacda ama kurkursatay aan mar laba la ilaabi karin oo mahadnaq iyo ammaan bale ciddii bixisay dhulkan oo ahaa dhul fara badan oo iska jartay oo xaqle ka yahay Yaasiin Cali Maxamed korneelkii ay sheeshaysan jiray imkana taliye ku xigeenka Burca aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana ka wakiilaha inankiisa Cabdullaahi Yaasiin Cali aad iyo aad buu mahadsan yihiin sida gudoomiye sheegay waxaanu joognaa maanta iskuulkii Nugaal oo dhismihiisa aru socday sida gudoomiye sheegay 3 qol ee hore ee dadweynaha degmada Celaf Weyn dhisanayay waa aragtaan oo maanta meel fiican bay marayaan inana waa dhiman tahay wixii hore ee iskuulka ka qayb qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa dhimanna waxaanu jecelahay waliba inay dadka intiisii kale nagala soo qayb qaadato oo nala dhameystirto qaybtii hore waa taa qaybtan dambe ee maanta dhismaheedu socdo ciddii bixisay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inta dhimanna raggii ballan qaaday waxaanu dileeyahay iyagana ku soo dara mana dhowo iskuulku kulli wax badan oo kale baa dhiman waa horaantiisii 15 bishii afraad 2020 waxaanu joognaa iskuulkii hoose dhexe Celaf Weyn ee Nugaal waxa ka socota shaqadii aan hore u ogeydeen ee ahayd isku dhismihii iskuulka jazakallahu khayr halka waxa ka muuqda 3 qol oo dadku Celaf Weyn qurbay iyo gudaha la dhisay oo contribution la isku tagay waxana u dhiman yihiin wixii kalena waa dhamaadeen insha Allah inta dhiman waxaan rajaynaynaa in si dadkii hore dadaalay u soo dadaalaan dhameystiraan halkan dhabarka iyagana waxa ka muuqda hore loo sheegay 3 qol oo hadeer la bilaabay mid aan insha Allah aroorta bilaabi doono oo sida chiefka kulli kaftan ku dhameeyay sida dadka la sheegay muxsiniinta ilaahay ka jisaysiyo wixii wax baxsaday runtii waa dad u dadaalay baahida meesha taalo iyo duruufaha markay arkeen ka dirnaxay dhalinyarada ama gruubka Dudcaraale ee qolka bixiyay kaana jikada saaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ana ku hadlaya afkii odayaasha mulkiilayaasha runtii waxaan leenahay ilaahay meesha ka soo saarteen khayr dhaqameed ku bedelo xaajiyada kale xaaji Saal Xawad Ruuso oo isna saakan la soo hadlay oo qolkiisa yiri bilaaba isna insha Allah uu mahadcelinayaa ilaahay waxaan leenahay ka soo saartay wax ka khayr badan Allah ku bedelo xaajiga oo meel fog jooga
xaaji maxamed axmed liibaan isna oo isna kiisii kuwa bilaaban ku jiro isaguna insha Allah waa mahadsan yahay xaajigu oo horena dee raggii dhulka uga qaban jiray kamid ahaa insha Allah dee anigu waaba joogaayo kulay kaygu waa isaga qasbanahay ma hadeeda insha Allah waa iska xaq akhriyo uma ducada raaci doonta saa ay ku soo gabagabeen afarta qol hadeer diyaar noogu yihiin hadii alla yiraahdo wixii kale aan suginay insha Allah wadi suginaa jazaa Allah khayr waqtiguna dee waa gaabsi xilli roobaad baan joognaa waxaan jecelahay in waqtiga hore la sii socdo dee insha Allah waxa la tahay dee wixii shacabka wixii dawladda Hindi baa u joogo ka hadli doonee gudoomiye ku-xigeenka naga warsii doonee qaybteedii hoolkii dawladdu waa naga dhiman yahay sallam goobta tan aynu taaganahay aanu maanta taaganahay ee aad aragtaan waxa weeyaan dhismaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Ceel Afweyn ee magaciisana la yiraahdo Nugaal dugsiga waa aragtaan oo 3 kalaas waa dhan tahay 3daa kalaas waxay ku baxday oo ku dhisantay contribution dadka degmada ah ayaa 3daa kalaas ee hore ay ku dhismeen dhabarkayaga waxa ka socda oo aad aragtaan 3 kalaas oo kale 3daa kalaas duraadna halka kanana hadal ka sheegay hadalkaasi wuxuu ahaa ninkii jiray wuxuu yiri la kala tagay waa u taagnaa dadka intii laga tagay waa laga tagay 3daa kalaas ee dambe Muuse Samatar baa dhisay saakana hadeerto waxa warkiisu soo gaadhaya kalaaskii afraad oo isna maanta yimi oo huruuse kalaas ah waa huruuse kalaas isna wixii dambe ee aan wali soo hadlin iyo waxa dambe ee soo socda waxaanu leenahay dee waqtiga timaadaan idinna waanu idin mahad celinaynaa maanta intii waxooda la hayo qolada hore ee iskuulkoodii imika uu istaagay iyo qoladan dambe uu socdo intiinuba waa mahadsantihiin ilaahayna haydanka abaal mariyo cidii kale ee noo soo socotana sidaas la eg baanu leenahay waxaanu leenahay raqaba waa ku rageede warbahashi waa aragtaano waa lagu dhex jiraa ee ragga aan garanayo isnabayow dee hawsha qaybtiinii waa la idinka sugayaa intaasun baan aniguna odhanaya wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagu waxaanu ahayn dadkii iskaa u shaqay iskaa wax ku qabso ku dhisi jiray Ceel Afweyn iyo iskuullada kale soo raacaba ilaa gobolka maanta qarnigaas wuxuu la shaqayn jiray Afweyn oo waa tagi laakiin imika halkan waxa ka bilaabantay tii beriga lagu shaqayn jiray dawladda Maxamed Siyaad Barre iskaa wax u shaqay ama ninku shilin ha bixiyo ama xoog ka bixiye ayaa ka socota iskuulkan la yiraahdo Nugaal waa dal weyn oo magac weyn magaciisu meel wanaagsan buu marayaa ragga ka hore dhisayna waa u mahad celinaynaa ragga kuwa dambe dhisayna waa u mahad celinaynaa waxba sadhiman dalkan iminka madaxda dawladdu ka shaq fadhiisatay xafiisyada hadday Ceel Afweyn tahay iyo hadday Cergaabo tahay iyo hadday Burco tahay iyo hadday Hargeysa tahay waxa lagu dhisay iska wax qabso waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxa aad qabateen runtii waxa weeyaan waa wax lagu farxo maqaatan waxaan ka nahay haddii aad tihiin shacabka reer Ceel Afweyn ina horena u haydeen dad wax qabadka iyo horumarka iyo iska wax qabsada ku dadaala maantana runtii waxa way muuqataa oo sida wax wadaan iyo halqabadka wadaan runtii aad baan ka mahadcelinaynaa intan kale waxa la sheegay 3 fasal ee dhamaaday waxay ahaayeen community reer Ceel Afweyn baa dhistay oo ku dhistay si iska wax qabsaa 4 fasal hadda la carabaabayna shakhsiyaad baa lagu carabaabay qofka marka la sheegay ma aha istusnimo in looga jeedo laakiin waxa weeye waa dhiirigelin bay u tahay in lagu dhiirigeliyo faraska jeedalka waxa loogu dhiftaa waxa weeye cadaawad ma aha laakiin waxa weeye waa orodka ha kordhiyo iyo kadlaha iyo kudaadiyo socodkaasi kordhiyo waxaan leenahay inta maqanay ee la sheegayo ee la carabaabo soo kaalaya oo meeshin waa banaan tahay soo buuxiya intii buuxisay ee intay ballan qaaday ka dhamaysayna waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah idinku daro aan kala hadlayaan leeyahay dooda dhexe wasiirka waxbarashada
mudane wasiir waad aragtaa shacabkii diyaar waxay u yihiin inay wax qabsadaan inay wax bartaan bay diyaar u yihiin inay iyagu iskaabaan bay diyaar u yihiin inta ay ka cawdeen roolka dawladda dhexe ah ee wasiirka adigu aad awoodda u leedahay dee macallimiinta gunnooyintooda iyo kordhintooda iyo intaba adiga awood u leh fulintoodaba inta ka dhimana dawladda dhexe iyo haddii aad hay-adaha iyo cid aad kula baran kartana waad kula baran kartaa waxa ka dhiman oo kale la doonaya dugsigii sare haddii saas ku dhammaato 8 fasal waxaa kaloo la rabaa deerkii waxaa loo baahan yahay agabkii sanitation-ka iyo nadaafadii oo suuliyadii ah wax badan baa dhiman kuraastii baa dhiman qalabka oo dhan baa ka dhiman isku leeyahay waa ka maqan yahay waxaa laga rabaa mudane wasiir adaa laga doonaya dadaalkan waxaan filayaa inaad haddaad maqasho aad ka soo jawaabi doonto runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad anigoo afka maayirka iyo ka degmadaba ku hadlaya iyo guddida laftiga waxaan leenahay guddida dhistay iyo ciddii abaabushay iyo ciddii inta hawsha ka gashayba runtii aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa maxamed cabdi barre TV-ga